sheekh qof kale ayaa wuxuu leeyahay sheekh bacdi salaan waxaan guursaday 8 sano ka hor dhowr mar ayaan sameeyay arrin hadda shaki gelisay taas oo ah laba mar oo isgafnay ayaan xaaskay waxaan ku iri waan ku furayaa oo warqad u qoray laakiin marqaati uma yeelin markaan guriga ka baxayna aan ka qoomiyay isla maalintiina waxaan u sheegay in arrintaasi ay muxuu ahaa ay meel dheedii iga jirin waan rabo inaan xaaskayga sidii noqoto mar kale ayaa haddana sidoo kale aan kala xanaaqnay anagoo kala joognay laba wadan oo kale markaas ayaan haddana waxaan ku iri waan ku furayaa ayadiina way iga diiday oo waxay ku adkaysatay inaan mar dambe muxuu ahaa furinkaas ay sarabin kadib qof dambe uma aan sheegin haddana mar kale anigu wadanka isla joognaa hal wadan aan wada joognaa ayada ayaan habeen isgafnay habeen kale waxaan ku iri subax 3 saacadii la gaaro haddana waa ku furayaa oo arinta sida taada iska bedel weydo qof kale uma aan sheegin marka sheekhu arintaas ayaa weel badan igu riday xaaskayga sidaas ay iga furan tahay mise waan qabawri alxamdulillah sida saylku sheegay haday tahay laba dalqadood way tageen kuwii aad qortay markhaatina uma baahna haddaad inkirto unba lagu cadaynteed ma markhaati loo baahan lahaa laakiin talaaqa dhicitaankiisa keligaa duur cidlaa haddaad joogto oo xaaskaaga waan furay dhahda way furmaysaa saa darteed xaaskaaga labada jeer ee kala duwan ee sida su-aasha ka muuqatay aad waraaqda u qortay inaad furtay dib ka qoomaysay tii koowaadna waa dalqad tii labaadna dalqad wey labada jeer ee kale eed marna wada joogteen marna kala maqnaydeen waan ku furayaa intaad tiri aan haddana furiin dhicin taasi waxaa la yidhahdaa wacdun bitalaaqi walaysa bitalaaqin waa ballanqaad inaad furi doonto berri subaxii berri baa la sugaya inaad furto waan ku furayaa intaad tiri waan ku furay haddaad tiri way furantahay laakiin waan ku furayaa waa ballanqaadka haddaad fulisana way furmi haddaada fulinna furmi mayso haddii intaad saa u tiri ama su-aasha ay ahayd aan u raaco laba dalqadood baa dhacay hal dalqad baad ku wada joogtaan middaa haddaa waan ku furay mar dambe kaa dhacdo qaadoo mukallaf ah dee dalqadii saddexdii waa idinka dhamaatay billahi tawfiiq